Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada qaybta shanaad ee taxanaha Sirdoon National Intelligence Service, hay-adda sirdoonka qaranka Kenya oo horey loogu yaqaanay National Security Intelligence Service. Waa hay-adda u qaabilsan raadinta xogaha sirdoon dowladda Kenya, kama duwana nidaamka ay u dhisan yihiin sirdoonka dowladaha deriska la ah iyo badiba dowladaha kale ee Afrikaanka ah. Xarunta dhexe ee hay-addu waa caasimadda Nairobi, waxayna door muhiim ah ka ciyaartaa habsami u socodka siyaasadda dalka Kenya. Muhiimad weyn ayayna ugu fadhidaa danaha dadka iyo dalka Kenya. Waa waaxda maleegta hagardaamooyinka dowladda Kenya la damacsan tahay cid walba oo cadow ku ah ama ay dano ka leedahay. Waa waaxda ugu shaqada badan xilligan dowladda Kenya waqti xidhiidhka siyaasadeed ee ay Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan daruur madow oo cadowtinimo ay hadhaysay. Waxaa la sheegaa inay ahayd hay-addii soo bilowday bililqaysiga badda Soomaaliyeed xilli horay ay dhul Soomaaliyeed oo cabirkiisu ka badan yahay 127,358.5 kiiloomitir oo laba jibaaran ay gacanta ugu haysay Kenya. Qorshaha badballaadhsiga Kenya waxa uu si xawli ah usoo bilaabmay sanado kooban kadib dagaaladii sokeeye ee dalka Soomaaliya. Dhagaraha hay-adda sirdoonka Kenya u maleegtay dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa heshiiskii badda ee 1 Agoosto 2009 kala saxiixdeen dowladaha Kenya iyo dowladdii ku-meel gaadhka ahayd ee Soomaaliya waqtigii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Heshiiskaas dhanka Soomaaliya waxaa u saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaa ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. Dhanka Kenya waxaa u saxiixay Moses Wetangula oo markaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya. Inkastoo aysan heshiiska ku jirin arrinta la xidhiidha xadka badda, haddana wuxuu dhigayay hanaankii loo mari lahaa in lagu xalliyo khilaafka xadka badda ee labada dal. Kani wuxuu ahaa qorshe loo maleegay dowladdii ku-meel gaadhka ahayd ee xilligaa. Waxaase xusid mudan in baarlamaankii Soomaaliya ee waqtigaa ay cod aqlabiyad looga codeeyeen in la laalo heshiiskaas. Xilligan ayayna ahayd markii si fiican loogu baraarugay soo tafaxidashada dowladda Kenya, iyadoo doodii ay Soomaaliya xilliga maxkamadda caalamiga ah u gudbisay go'aanka kama dambaysta ah ilaa maanta la dhowrayo. Laga soo bilaabo xilligaas ka hor iyo kadibba, dowladda Kenya oo adeegsanaysa hay-adda sirdoonka dalkeeda waxay maleegtay qorshayaal badan, waxayna tan iyo waaga u helanayd oo ay ka shaqaynaysay qorshayaal dadka Soomaaliyeed indhahooda looga jeedin karo boobka ay rabto inay ku qaadato badda Soomaaliyeed. Inkastoo dowladihii Soomaaliya wixii ka horreeyay 20 Agoosto 2012 ay ahaayeen ku-meel gaadh, haddana Kenya oo lacag, aqoon iyo maskaxba adeegsatay waxay ku khasaartay hirgelinta qorshaha badboob ee ay muddada soo waday. Sanadkii 2011 waxaa sirdoonka iyo xukuumadda Kenya ay istuseen qorshe labaad oo ay dano muhiim ah ugu fuli karaan. Wuxuu ahaa Operation Linda Naji oo micnihiisu ahaa howlgalkii difaaca waddanka. 16 Oktoobar isla sanadka 2,000 oo askari ayaa kasoo tallaabay xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya, waxayna gudaha u soo galeen dalka Soomaaliya. Mas-uuliyiintii Kenya ee xilligaa waxay ku doodayeen inay amniga dalkooda ka shaqaynayaan. George Siyototi oo ahaa wasiirkii amniga gudaha ee Kenya xilligaa, horeyna u ahaa la taliye amniyeed, wuxuu yidhi ciidanka Kenya waxay ahayd inay mar hore galaan gudaha Soomaaliya, mana ogolaan doono inay dambiilayaal nooga soo tallaabaan Soomaaliya oo ay xasiloonida dalkeenna wax u dhimaan. Ujeedku intaas waa uu ka ballaarnaa, waxayna tani ka mid ahayd tiro qorshayaal ah oo sirdoonka Kenya oo ay dowladdoodu taageerayso dejisay si dalka iyo dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada koonfureed, waxyeello badan loogu geysto. Ciidamadaas waxay dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa deegaanadii ay degganaayeen u geysteen waxyeello ba'an. 2011 duqeymo diyaaradaha ciidamada Kenya fuliyeen waxay si ula kac ah u duqeeyeen dad shacab ah oo degganaa deegaanada Hosigow iyo Kudhaa oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. Duqeymahaas ula kaca ah iyo laynta dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan muddo ayay sii socotay, waana khatar taagan ilaa inta ay dalka ka baxayaan. Tani waxay ka mid ahayd tiro qorshayaal ah oo loogu talagalay inay fuliyaan ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugani, waxaana door muhiim ah qorshayaashaas ka ciyaarayay ciidamada sirdoonka Kenya oo dadka intiisa badani aanay ku baraarugsanayn. Inkastoo aan la beenin karin in siyaasiyiin Soomaaliyeed
iyo basaasiin hay-adda sirdoonka Kenya ka tirsan ay Soomaaliya joogaan oo ay howlo loo soo igmaday ka dhex wadaan. Haddana waxaa kale oo sirdoonka Kenya uu xoogga saaray u diyaarinta shacabka, ciidanka iyo warbaahinta Kenya dagaal ay la galaan Soomaaliya. Waxay sirdoonka Kenya isku xidheen shabakad sirdoon oo hawsha u qaabilsan. Hay-adda sirdoonka Kenya waxay dabagal qarsoon ku samaysaa dhaqdhaqaaqyada dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalkeeda ku nool. Sirdoonka Kenya waxaa kale oo qayb lixaad leh ka qaataa ololaha ka saaridda qaxootiga Soomaaliyeed dalka Kenya. Qorshayaasha hay-addani waxay u muuqdaan kuwo dowladda Kenya taageero weyn oo lacageed ku kabto si ay u fuliyaan howlaha loo xilsaaray oo ah hagardaamaynta shacabka Soomaaliyeed. Waa sidee qaab dhismeedka hay-adda sirdoonka Kenya? Qaab dhismeedka ciidamada hay-adda sirdoonka ee Kenya waxay ka kooban tahay 8 waaxood oo waaweyn, waxaana ka mid ah Internal Division, waaxda gudaha oo mas'uul ka ah soo ururinta xogaha sirdoon ee dalka Kenya gudihiisa ah. Waxay xoogga saaraan dabagalka siyaasadda, nolosha bulshada, dhaqaalaha iyo xaaladda ammaan ee dalka. Waaxdani waa ciidanka sirdoonka ah ee ka howlgala gudaha dalka Kenya oo keliya. Waxay basaasaan xogaha dalka gudihiisa looga baahan yahay. Waxay sidoo kale ciyaaraan door muhiim ah waa hanuuninta bulshada iyo u diyaarinta hadba wixii dowladdu la rabto dadkeeda. Dhammaan howlaheedu waa sir, waana dembi culus sirdoonkii baalmara dariiqa loo jeexay. External Division, waaxda dibadda oo mas'uul ka ah soo ururinta xogaha sirdoon ee dibadda Kenya, kuwaas oo la xiriira siyaasadda, bulshada, dhaqaalaha iyo xaaladaha ammaan. Waxaa intaa dheer in waaxdani tahay midda ugu khatarta badan. Waxay basaasaan xogaha dibadda Kenya looga baahan yahay. Sidoo kale waa waaxda fulisa oo u tababaran fulinta howlgallada khaarijinta ah. Waaxdani badanaa dadka u shaqeeya maahan Kenyan oo keliya, waxaase u badan ajaanib. Dhammaan howlaheedu waa sir, waana dembi culus sirdoonkii baalmara dariiqa loo jeexay. Labadaas waaxood ee kor ku xusani waa laf-dhabarta fulinta howlgallada sirdoon ee hay-adda sirdoonka Kenya gudaha iyo dibadda dalka Kenya ka fuliso. Counter Intelligence, waaxdan waxaa loo qorsheeyaa dabagalka basaasiinta iyo howlgallada loo xilsaaro. Waaxdan waxay kala shaandhaysaa xogaha sirdoon ee hay-adda soo gaadha, saxnimadooda iyo muhiimadda ay u leeyihiin dalkooda. Waxay u lambarisaa xogaha ay hesho sida ay u kala muhiimsan yihiin A, B iyo C. Waaxdani waa tan maamusha dugsiga takhasuska basaaska ee Kenya. Xarunta ugu weynina waxay ku taallaa magaalada Nairobi. Waxaa lagu tababaraa basaasiinta cusub, kuwa horey u soo shaqeeyay, khabiiro iyo basaasiinta dowladaha kale uga adeega hay-addan. Operation and Technical Services waxay u qaabilsan tahay taageeridda howlgallada lagu soo aruurinayo xogaha sireed iyo wixii qalab tiknoolajiyad ah ee basaaska u baahan yahay si uu xogahaas u soo gudbiyo. Waxay sidoo kale fulisaa adeegyada farsameed ee basaaska u baahan yahay. National Intelligence Academy oo mas'uul ka ah tababaridda mas'uuliyiinta basaasiinta sirdoonka. Marka laga yimaado tababaridda basaasiinta cusub, waxay sidoo kale bixisaa barnaamijyo tababareed oo la siiyo shaqaalaha caadiga ah. Waxay sidoo kale tababaro caadiya siisaa xarumaha tababarka ee dowladda, xarumo gaar loo leeyahay, jaamacado iyo xarumo kale oo dowladda xidhiidh fiican la leh. Administration oo u qaabilsan maamulka guud ee hay-adda, bixinta kharashaadka, shaqaalaysiinta basaasiinta iyo maamulidda dhammaan waaxyada kala duwan ee hay-addan. Waxaana booskan lagu aaminaa oo keliya khabiirada muddada badan ka soo shaqaynayay hay-addan. Dhammaan waaxyadaas oo midaysani waa shabakadda fulisa howlgallada sirdoon ee hay-adda sirdoonka Kenya gudaha iyo dibadda dalka Kenya ka fuliso. Waxaana la shaqaalaysiiyaa oo keliya qofkii u qalma ee la isku halayn karo. Arrinta xusidda mudane waxay tahay in basaasiinta dibadda loo diray yihiin ajaanib, hadba waddanka loo dirayo u dhashay, waxayna hay-addu ku bixisaa cadad lacageed oo fara badan, iyagoo marka waddanka ay ka howlgalayaan tagana qaata magacyo kala duwan sida siyaasi ama ganacsade. Xalqadanna maanta intaas ayay nooga eg tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.